wafdi ballaadhan oo hogaaminayay maayirka degmada Cilaf Weyn ayaa safar ku gaalabixiyay maalintii saddexaad deegaano tiro badan oo kamid ah degmada Cilaf Weyn. wafdiga oo isugu jiray xildhibaano kamid ah golaha deegaanka Cilaf Weyn, maamulayaasha wasaaradaha deegaanka iyo xanaanada xoolaha ee heer degmo iyo mas'uuliyiin iyo saraakiil kamid ah ciidamada qalabka sida ayaa waxa ay deegaanadaasi intii ay marayeen qabteen dhuxul doola oo loo rareeyay deegaano kamid ah dalka Soomaaliya. maamulaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee degmada Cilaf Weyn Cabdiraxmaan Xuseen Aadan, qaar kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka Cilaf Weyn, maayirka degmada Darar Weyne iyo mas'uuliyiin kale iyo saraakiil kamid ah ciidamada booliska oo la hadlayay bulshada deegaanadaasi ay safarka ku marayeen, sidoo kalena ka warbixinayay intii ay hawlgalka ku jireen. waxay sheegeen waxaanu qabanay gaariga waxaanu ku qabanay tuulada la yiraahdo Garabcad, waxaanu ku qabanay oo kale 4 nin oo 3 naga baxsatay. 3 nin ee baxsadayna iyagana sharcigaanu la tiigsan doonaa oo halkooda ay ku xukuman yihiin. ninka gaariga saaran iyo ninka kale ninka gaariga saaran iyo gaarigaba iyagana sharcigaanu la tiigsanaynaa. dhuxushana halkeeda lagu gubaya. waxa la isticmaalay in la yiraahdo deyn baan u sii isticmaalay geedka, ma socon doonto geed dambe loo isticmaalayo qaadka xuna Itoobiya la geynayo socon mayso. hadeerba ka gurta anagu waxaanu sidanaa wasaaraddu waxay sidataa uqaashu saxiixyadoodii bay sidataa. chief caaqilkeenu haddii hoos wada hadallo wuu saxay qofkii dhuxushida iyo geedka sidaya in la dilo, isagu wuxuu geystana in lagu leeyahay reerkooda. chief waa saxay isagay maarkii wuxuu waa saxeen. sidaas oo dhan maxaa loo sameeyaa? waxa weeye dhirtii iyo deegaankiisa inuu laashan lahayn. dadka ka imanaya Puntland haddaad aragtid dhulkooda de lama gubo oo geed lagama jaro oo lagama jarto, geedku intuu qoyan yahay. waxaasina waa midnimada ay shacabku la yimaadeen. inaguna waxaan u baahannahay inaan sidaas si leegteena u dhowrano. aduna naceebahay sidisteeda haasha waa laga hawlgalayaa. hadeerna wax badan baan ka qabanay, 2-3 casho intaan wareeginay wax badan baan ka qabanay. waana lagu tala jiraa baasha nin walba baasha iskaga bax fara kala bax. inamada dhuxulaysatada waxaan u diray fariintaan u diray waxa weeye deegaanka ama dawladda u adkaanaysa oo deegaan dawladdu ka mas'uul tahay buu noqonayaa, ama deegaana ka mas'uul tihiin bay noqonayaa. aabayaasha la soo hadlaya marka ciidamada iyo maamuladu ku soo baxaan inaan iskara u leexnaa. adiguna waxa weeye waa inoo taala. waxa weeye adaa inanka xariga uga horeynaya. fariintaan u dirayaa bulshada waxa weeye dhuxusha haddaan laga feejignoon gacan adag baa lagu qabanayaa. sanad baan isbaalsalaaxaynay, 2 sano aan isbaalsalaaxaynay wanaag iyo wax sheegid iyo wacyigelin. haddaanu maamulada nahay way naga soo dhamaatay. gaarigan oo dhuxushii saaranteena waan ku qabanay, rasaasna waan xogay waan ugu riday. beel buuro bulka koro wadigu naga dhaadhacay, darawalku baan soo helay. markaas sidaas waxa weeye nimanka dhuxusha shidan iyo waxa uu sheegaya aabayaashood u dirayaan ay leeyihiin ordo keentay noo soo laa liidar waxaan ku galay inaan la bixin. maayirka degmada Cilaf Weyn Maxamed Aadan Digaale waxa uu sheegay in waayeelka deegaanadan iyo maamulku ay isla qaateen go'aano lagaga hortagayo xaalufka deegaanka. dadka deegaanka waxaanu leenahay waanu ognahay oo deegaankii qaad baa siisateen. waan garanaynaa nimanka in badanna waa la idinku wacyigeliyo deegaanka daaya. maanta daaya idin oran mayno, lafihiin la baxsaan idin oranayna. qolada bari ee gawaadhidu ka imanayso doolka ana waxa weeyaan walaa reer hebelnimaanaan ku sii deynayn haddaa gawaadhi ku qabsataan, walaa dawlad kaloo soo hadashaanaan sii deynin. waa dambiile. gaadhigaas wuxuu u harseeday oo uu fududeeyey in deegaankaa la gubo oo qaad la siisto, khamri la siisto fududeeyey. baasha ka waantooba, dhulkana iska baabi'inina. dhulka cid kale la ka laasan maysaan, waa dhulka xoolaha ku dhaqanayseen. hadda iska baabiisaan bari xagga xoolo idin daaqaya. arinta ka waantooba nin walba inankaaga hadda bari ka maalin marka la qabto in hebel buu noqonaya. hadduu kula joogay hadduu ku maqli waayo aad u taag weydana go'aan qaado beer jilaac helino bari marka la qabto ka dabeeman. waanu ognahay kuwii aanu shalay dhuxul halka gumeyna maanta halkan qoriyo la wareegaya. way leeyihiin dhuxul baan laga gub. dhuxul baad ka hadlay iyaga xabsidaayin lagu xukumay. ninna looga indha qarsan maayo. uqaashu waxay saxeexday ninkii dhuxul lagu qabto haddii lagu dilo inuu dismis yahay. hadeer bayeynaan isu sheegin. waa la saxeexay, waa la isku raacay, waa dismis. wixii uu geystana reerkooda lagu leeyahay. nin walba gaarsiiya
nin walba adeer haddaad caafimaad qabtaa hadduu inankaaga ku nool yahay hadda kala baxdhuxush waxa loo baahan yahay sidii gobolka Togdheer oo kale wasiiradu ay uga hawlgalayeen gobol Sanaagna uga hawlgalaa maxamuud Masuul wararka Home Cable TV Celaf Weyn.